Hi, hello everyone, good morning. It's me, your English teacher. I'm back right now. Today I'm going to give you a beautiful lesson. It's talking about the dependent who bent his wife brutally. In this lesson, you're going to find a lot of vocabulary. So now, listen to my explanation, okay? So, last Monday, Banaadir Regional Court waa maxkamadda gobolka Banaadir. Regional waa goboleed weeyaan, court waa maxkamadda. Held ayaa waxay qabatay the second labaad session fadhiga of hearing ee dhageysiga of the case ee kiiska of the defendant ee eedeysanuhu Said Ali oo magaciisa Said Ali soo dhigmiye marka good result natiijo wanaagsan good result come out ee ka soo baxday the court maxkamadda weeyaan the court maxkamadda actually xaqiiqda weeyaan marka the case waa kiiska is still wali ongoing wuu socdaa another verdict go'aanka is being waited waxaa laga sugayaa from the court maxkamadda weeyaan from the court maxkamadda as we see san arkayno the defendant eedeysanuhu wuxuu markaasi haystaa Ankichiwas afmishaar Atoni qareen ama bukaato afmishaar ah marka Ankichiwas afmishaar weeyaan Atonin waa qareen weeyaan and he is claiming wuxuu ka andacoonayaa that the deceased marxuumada Lul Abdul Aziz died inay markaa u dhimatay injuries dhaawacay way injuries sustained ka soo gaaray in a fire dab so isn't miyaysan that matter arrintaasi obstacle aysan caqabad ku yahin obstacle to justice cadaaladu that inay marka the deceased marxuumada would find a marka she would find a hesho even xitaa if the court haday maxkamadu favors ee marka u hiilaysa favors ama ay la jirto waa favors the defendant eedeysanuhu I believe waxaan aaminsanahay that justice inay cadaaladu will abid ee u helin doonto abid for u helin doonto the deceased marxuumada Lul Abdul Aziz as we know san ognahay this case-kani is too bad and aad buu culus weeyaa marka too bad aad buu culus yahay because maxaa yeelay they say waxay dhahaan the defendant eedeysanuhu was born of wuxuu ka dhashay dominant ugu tirada badan dominant awood iyo tiro kule weeyaan dominant agni waa beel marka isku qana dominant agni waa landere weeyaan Soomaaliya ay oranayaan dominant agni landere so may this may santani cause ay soo weynin the victim family qoyska dhibana to miss inay seegaan justice cadaaladu take out ka saar taasi of your mind maskaxdaada because maxaa yeelay all Somali eyes dhammaan indhaha Soomaaliyeed are on waxay kusii jeedaan the murderer gacan guriga who kaasoo bend guway the deceased marxuumada so being dominant agni landeernimo is not working ma shaqeynayso. It's all my lesson for today inshallah. I'm going to give you a lot of beautiful lessons in my English course. Thank you very much for watching my video. Bye for now. Bye students.